kuna wacan meel walba caalamka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka kulanka toddobaadka barnaamijkana alaaba waxaad ka daawataan Kalsan TV maanta waxaa marti igu ah isku duwaha guud ee guddiga ganacsatada Islii Umar Ahmed Nuux وورين عمر كسودو برامج كلانكا كالسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وسلامية شعبك الصوماليات يو تي في كالسن ويسي chance كان أنكو سلامة يو أما أنكو لهذا أمة الصومالية. سيدوكو باللاودي جناعسك إسلي بالفاهين إنجاسي. بسم الله الرحمن الرحيم. جناعسك إسلي وحب الله المددر. شعب إسلامي أو صوماليات وبنا بلابي أيقو كبلابي ماله هو سكسب بلابي أو سر الدشيت نجارس اللوجو قلنا أو كسب بلابي سريرها أما حافظة لوجك أيوة يا جناعسير اللوجو بلابي جناعسي مدة كدب حوق هرب أسوة سعودية مدة بس أسوة سعودية إلى ما أنت ونقضه حافظ إسلام أي نقطة كوب ganacsi ama caan ku ah ganacsiga kala duwan ama dhismaha ama ganacsiga isgaarsiinta guryaha loojimada waxa soo dhan ganacsi muuqdo oo isku wada jiro oo qayb kasta ka kooban ilaa uu ka noqday haddana uu noqday suuqa ugu caansan ee East Africa ama bariga Afrika East iyo Afrika uu caan ka noqday oo suuqa ugu baaxad weyn ama ugu weyn shacabka kala gedisan ee Kenya iyo wadamada dariska ay ka adeegsadaan buu noqday oo hadda joogo 10 sano u dambeeyna complete wuxuu qaatay heerkii ugu sareeyay oo magac iyo muuqaal iyo hantiba noqday meeshii ugu caansaneed ganacsi ee dadka ka sameystaan oo ku kalsoonaadeen oo hantidoodii galiyeen ay noqotay xaafadii caan ku noqotay wayna soo kortay oo xagga isbedelka iyo heerarka horumarka aad u soo kortay sidoo hore aad u dhaantay awal hore iyadoo jajaban ama aan nadiif ahayn bay dadku ganacsan jireen laakiin hadda waxaad moodaa waa heer wanaagsan bay maraysaa oo boqolkiiba 75 ama 80 ay hormarsan tahay waxyaalaha yar yar oo dhiman hadda dawladda ay ku jirto sidii uga shaqeyn lahayd oo dhameystir lahayd shacabka ku ganacsanayana waxay fahmeen xuquuqdoodii iyo heerkii magaalada sidii loo dhisi lahaa baa la bartay kolkii hore iska shato si iska bilow ah nin kasta meeshiisa ka bilaabmay laakiin hadda uu isqabsaday wuxuu yeeshay shuruuc hay'ado kala duwan oo Islii community ay kamid tahay soo dhismaha qayb weyn ay ka qaadatay in shacabka iyo dawladda iyo xuquuqda ay shacabku leeyihiin ama dadka leeyihiin aan ka shaqeynay oo dhisnay taas waa markii keentay inuu maanta suuqu heer sare oo lagu faano oo marayo oo noqday aadiya kol hore dawladda Kenya waxay ka dhawaajisay in ay canshuur dhimis sameynayso markii uu dhacay cudurka corona iyadoo dadka loo damqanayo dadkaas canshuur dhimista loo sameeyay ma kamid yihiin Somali community ama reer Islii ma kamid yihiin qof kasta oo ganacsi sameeyo oo canshuur dawladda u celiya uu sameeyo uu kamid yahay canshuurtii hore dawladda siin jirnayna tuka yar baad la bixiya oo taas waan ka simanahay oo dawladda waxay soo jeedisay wayna sameeyeen intii la dhahay celiyaan celina boqolkiiba 16 bay ahayd hadda boqolkiiba 14 waaye canshuurta oo la celiyo oo dawladda taasna bishii hore bilaabatay waana lagu dhaqmayaa sidii dawladdu u soo jeedisay baan u qaadanaynaa waxaad sheegtay in boqolkiiba 14 canshuur dawladda loo celiyo horay imisay u corona ka waxa la celin jiray boqolkiiba 16 bay ahayd tan mid kale oo sanadkii la celiyay boqolkiiba 32 bay ahayd marka labadiiba waa la dhimay midkiiba in baa laga dhimay sidii looga dhimay baan anaguna marka oo ula soconaa oo nin kasta oo canshuur celiyaan uu uga dhimaya ganacsiga hadda hakadka waxa keenay uu cudurkan ka adduunka oo dhan ka wada ka faafay ee pandemic ee COVID-19 ka corona ayaa wada saameeyay ganacsi meel kasta alaabtii dibadda laga keenay ganacsiga dibadda dadkii ganacsatada dibadda aali jiray oo ina aadin ilaa 40 bilood ay soo xirmeen xayiraada guud maahane ganacsigu sidiisa kale uu socdaa dadku way yimaadaan way adeegsadaan oo adeegooda wadan gudihiisa ka yimaadaan ama waxay ka yimaadaan magaalada gudaheeda kolkii hore waa ogtay Islii in la xayiray oo lagu soo jiroogay xayiraad gooni oo Islii kaliya oo Islii laga bixi karin lagana soo gali karin oo bil 30 cisho gudaheed saas ahayd 32 cisho actually 32 cisho marka hadda markii dawladdu naga qaatay waxaanu dareenay furfuraansho oo magaalada dhexdeeda dadkii kale ay imaanayaan oo magaalada Nairobi looga soo imaanayo oo laga adeegsanayo waa taasna wadanka diska ma la qabnaa laakiin xayiraadan waxaan sugnaa insha Allah adduunku markuu ganacsigu furmo inuu ganacsiga Islii sidiisa ku furmo sida adduunka meelaha kale uga furmo maxay tahay sababta ay dawladda Kenya danta ay kala heeday oo Islii kaliya loo go'doomiyay
waxay ahayd riboodyo badan oo markaas soo baxay oo dad si kale wuxuu sheegay in baaritaan isli lagu sameeyey baaritaankii lagu sameeyeyna in dad badan laga helay ayaa dowladda loo sheegay marka waxaa la yidhi maadaama dad badan laga helay sidaa isliha lagu xayiro ayay dowladdu go'aanka ku gaartay laakiin waxaan ogsoonahay dadkii laga qaaday xataa dad raisli mayna ahayn dadkii meeshan intii lagu cabiray yiri cudurka laga helay dad mayna ahayn dad raisli ah dad waxay ahayn isli xaafadaha kale ka yimid bay ahaayeen oo laakiin baaritaan iska galay maadaama baaritaanka isla lagu baarayo baaritaankii ay galeen ayaa dad badan baa laga helay baa la dhahay dadkii badan dartood baa loo yaa lagu soo rogay xayiraadaas laakiin anagana wax waanu aragnay inay qalad ahayd laakiin maadaama 15 cisho laga dhigay haddana 15 kale lagu daray waxaanu dhahnay in dowladda iska suga amarkeeda waanu ku guuleysanay inaanu xayiraadii oo nasaaran oo isla laga bixi karin inaan suuqanadii furan dukaamada aan furnay oo ku guuleysanay oo isla dhexdeeda laga shaqaysanay oo dukaamada ay furnaayeen laakiin aan laga bixi karin 15kii dambe ayadana alxamdulillah way dhamaatay arintiina sidii hore ku soo laabatay maadaama wax qalad dhacay anaga marka wax weyn ma noo arkayna aniga dawladda iska hor imaan qaladkii dhacay dartii dawladdu way noo sheegtay waa wasiirkii madaxweynuhu wuxuu noo soo diray wasiirku wuxuu noo sheegay inaan la xayiran isli nacayb ay dawladdu nacabtay ama si gooni ah aan laydin xayirin waxaan waa cudurkan san oo la wada dagaalami lahayn darteeda u xirnay ayaa lagu yiri si fiican baa la noola hadlay anaguna waan ogolanay dawladdu waa dawladdanadii maanan ka hor imaan karin qaladka waxa iska la qoliyaha waxa baaray baladhiga maadaama aysan qofka deegaanka uu ku nool yahay waxa iska leh qolooyinka caafimaadka ayaa iska leh taasna anaguna waan ka hadalnay waan u sheegnay dadkan hadina raisli ahayn aan loo qorin isli aan loo qorin laakiin maadaama isli lagu baarayay riboodkii la gudbiyo waxa way isli intaas qof baa laga helay dadka Soomaaliyeed ama dadka xaafadda degan way yaraan ila cabir anigu aan ku jiray tigil cabir dadka meesha isku baaray dad yar bay ahaayeen marka dhowr waxa la cabiray kun iyo dhowr qof wax 300 aan gaarin ayaa Soomaali ahayd ama dadka meesha degan inta kale oo dhan waxay dad banaanada ka yimid taksiilayaashii oo karadii dadka ajnabiga kale adeeganay dadka xaafadda iska imaanay ama ka xamaalinay dadxaas ahayn ayaga isbaaray marka ayaga hadii laga helay anagana in magacii la saaro kulli anagu culays waan u arkanay markaas laakiin waanu ogolaanay in la xayiraadaas la nasaaro wayna dhamaatay alxamdulillah waanu ka soo kabanay hadda xayiraada wadanka saaran ama Nairobi saaran baanu ka midnahay markii la furana insha Allah waan la furmayna ganacsigu inuu furmaan rajeynayna insha Allah hagaag kol hore waxa dhowr mar soo noqday isku dhaca ciidanka dawladda hoose iyo dadkan waratada ama hawkaaska loo yaqaan oo u badan dad dan yar ah oo Soomaaliyeed isku dhacayaasi maxaa keenay waxa keenay horta dawladda hoose ama dawladda hoose waxay leedahay sharciyeedu waxa way inay ilaaliso sharciga iyo kala dambeynta ama nidaamka dawladeed ee xaafadda ka jirta in la ilaaliyo waa qasab sida toonka loo ilaaliyo ama meelaha kooba kale ganacsiga loo ilaaliyo onba tan loo ilaalinaya marka waratadu inay dhigtaan meel jid dhexdii oo la socdo ay baabuurta maraan oo dukaamada kale looga maro suuqa kale hortooda inay dhigtaan oo ay ku ganacsadaan nidaam dawli ma aha maadaama nidaam dawlad ahayn qofka waxay dawladdu ku qasbantahay inay meesha ka qaado oo alaabtooda la xayiro oo laga qaado ay ku qasban yihiin marka dadka waratadu waa inay raadsadaan meel aan ahayn jidkaas ama dukaamada hortooda aan ahayn markii aad dukaan hortii alaabta dhigatay ku ganacsatid alaabta ay iibinaysana alaab la midana ninku gudaha ku jiro uu iibinayo oo asaguna dawladda ka tirsan yahay uu dukaan leeyahay oo kare laga qaato oo dawladdu canshuur ka qaadato qofkan kale ee hortiisa ku waratadu waa xaq darro inay saa ku sameeyaan marka dawladdu waxay ku qasbantahay inay shuruuc kale ilaaliso iyo ilaalinaysa ninka dukaanla waa inay ilaaliyo ninka dukaanla wuxuu bixiyaa canshuur dawladdu siiya kiru bixiya oo ganacsi uu abuuray qofka guriga iska lahan tiilaha lacag kiru ka qaata oo dhismo dhaqaale ayuu ka samaystay marka ganacsigaas in la ilaaliyo dawladdu way ku qasbantahay maxay canshuur bay bixiyaan canshuur baan naga bixinaa dadweynaha ganacsiga canshuur bay bixiyaan hadii aan markaa nidaam kala dambeyn u jirin canshuurta maxaan u bixinaynaa marka inaan anagu diidnay noqonaysa oo aniga dawladdu isku dhacno oo nu dhahno anagu waxaan bixinayna malaha marka dawladdu waa inay doorato ma ninkan waxay ilaalinaysaa ganacsiga ee haduu la dagaalamo canshuurtiisa la hari kara mise qof warato oo banaanka joogo haduu rabo meeshu raba aadaya marka waratooyinka waxaa leeyahay xuquuq bay leeyihiin laakiin xuquuqday leeyihiin ma siinayso inay xaq qof kale xaqiis ay dudmaan ay dulmiyaan ay dukaan kale hortiisa alaab ku furtaan xaq ma aha dawladuna intaas ilaalinaysaa meelaha jirta loogu talagalay dad waxaa jira ganacsato oo furay meelo ay iyagu ku ganacsan karaan oo lacag ka qaata marka meelihii intay soo baneeyeen ay jidka degeen waana loo geeyay meelo badan oo loogu talagalay oo macayina jiro oo la
yaqaano oo ayagu og yihiin anaguna aan ognahay marka waa inay meelaha loogu talagalay waa inay aadaan oo jidka hortooda ka kacaan dawladuna inta un bay samaynaysaa anagu wax kale oo xayiraad kale ama isku dhac kale oo meesha ka socda ma ogin oo inta ahayn miyaysan xaq u lahayn in goobo loo sameeyo dawladdu ay raalli ka tahay iyaguna ku qanacsan maadaama ay xaq u leeyihiin inay noolaadaan yaa u sameynaya marka su'aasha waxa weeye yaa u sameynaya dawladda raba inay suuqa dawladdu ay leedahay oo yaryar oo loogu talagalay nasiib daro ma dawladda ma dad ganacsi ah meelihii mucayinka ah ee dawladdu ay dadka siin lahayd dad ba iibsaday ama dad shakhsiyaal ama dawladda waxay ka iibisay waxa la dhaho partnership oo dawladda iyo shakhsiga ganacsi la wada sameeyo ama dhul la siiyo oo la dhaho dhiso oo dawladduna ka qaadato maadaama ay dawladdu si ku bixisay maalihii waxaa jiray meelo kale oo dad shakhsiyaal ah ay samaysteen suuqa yar ayaga loogu talagalay oo dadka danyarta ah ama wartada loogu talagalay oo meelo ah meelihii markii muddo way ku jireen way ka soo baxeen waxay ku soo laabteen laamigii marka qaladka ma laha dawladdu ma laha dadka ganacsiguna ma laha dad ganacsi guriyay dhisan guriyay iibiyaan guriyayna kareysteen guriyaha qofkii geli kara wuu geli karaa waa ilaa hadda dad guryo bannaan baa jira oo loogu talagalay dadka waratadu inay galaan oo ayna ka qaadin lacag horumaris ama lacagtan la dhaho goodwill waxyaalahaas oo dhan ka qaadin dad badan oo ganacsatada la hadalnay waxaan dadka deerta jidka ku ganacsanaya oo ogolaada inay guryaha galaan lacag badan oo ama dadka goodwill ay dadka kala bixiyaan ayna bixinin dad badan baa noo ogolaaday suuqaq baa jira hadda like Darussalam Max mooyaale suuqaq u baxoos suuqaq badan oo galeen baa jira oo ilaa hoos banaano oo dad badan oo isugu tag oo warato intay tageen ay kareysteen marka waxa la rabaa iyaguna meelahaas oo kale inay galaan laakiin wixii xaq ay dawladdu ay ku leeyihiin dawladdu waa inay dhul u raadisaa dawladda laga rabaa hadda meel waxa jirta bari sanadadii hore meel Pumaani ku taal oo dawladdu leedahay oo la dhahay gala nimankan waa loo wacay waxa la dhahay meeshaas dawladdu idinku tala gashay meelaha gala way diideen anaguna waan joognay way diideen waxa dhahay meesha way ka fogtahay magaalada marka waratada laftoodu waxa la rabaa inay xuquuqdooda ogaadaan maxay tahay wixii ayaga laga rabo iyagu u banaan iyo waxaan u banaanayn baa jira oo ma banaana sharcina ma inay dukaamo hortood ku ganacsadaan oo dukaamadii kale gudaha ku jiraan taas xaq ma aha sharcina ma aha cid ka ogolaana ma laha ninka dukaanka iska xaq buu leeyahay asaguna xaq buu leeyahay marka ninka waratadii inuu ninka dukaanlaha xaqiisi celiyo ama uu ku tunto muhiim ma aha qolyahan waratada ama hawkaaska sida loo yaqaano oo aan hore ula kulanay waxay noo sheegeen in ay canshuurta maalinlaha ee kaanjooga bixiyaan haddana dadka moolal kale ama suuqyada waaweyn leh dukaamada leh ay lacago ku bixiyaan sidii qolyahan loo ceyrin lahaa waxba kama jiraan waxa la bixiyo oo dawladdu ka qaadato canshuur ay dawladdu ka qaadato oo loo geeyo ma jiraan waxaa la istaajiyay 2017 ayaa lacagtii boqol kishin ay dawladdu qaadi jirtay ay istaajisay waxaana istaajiyay Governor Kidero ayaa istaajiyay xataa soonka ma aha soonku intuu ku jiray wax lacag oo la qaatay oo canshuur dawladdu oo official ah oo ma jiraan wax beenbeen oo ma wax mas'uuliyad inuu ku bixiyay anigu moogi laakiin dawladdu wixii ay qaadan jirtay boqolkii shilin ee ninka wartada ka qaadan jirtay waa laga joojiyay isliina waa laga joojiyay magaalada waa laga joojiyay qarar dawladeed baa laga joojiyay Kideraana joojiyay wuxuu yiri marka meel nidaam oo sax baa lacag lagu qaadi karaa laakiin meel banaan ah shuruucda waa la laabtay ma jiraan wax cid wax ku bixisana ma jiraan dawladdan hoose waa dawlad hoose xafiis bay leedahay dad bay leedahay shaqadooda ay qabsadaan anaguna ma xukuno iyaguna ma xukumaan laakiin wixii nidaam ah dawladda laga rabaa inay shacabka kala ilaaliso nin kasta xaqiisa lagu ilaaliyo ninkii dukaankiisa lagu ilaaliyo ninkii warataan meeshii munaasab la geeyo anagu ma diidan in meel la geeyo waan jeclaan xataa anagu waxaan sameeynay guddiga ganacsiga waxay sameeyeen in la hadlaan dad mulkiilayaal ah oo guryo dhistay oo la dhaho dadkan hawkarka ee danyartana ha loo ogolaado dukaamo in la siiyo oo ha ku qasbina goodwill rag badan dukaamada aan ku sheego dhan waan kala hadal weyn ogolaadeen marka waxa la rabaa iyaga laftooda inay wax gartaan oo wax la isu garaabo ayaa muhiim ah hadii wax ari beenbeen oo la isku dhaleecaynayo anagu mas'uul waxa ka mid okay maadaama lagu jiro cudurkan pandemiga ama coronavirus oo qasaara jiri karto isu socodkeedu yahay ma jiraan qasaara aad diiwaan geliseen diyaatiin ganacsatada Soomaaliyeed way jiraan qasaara adduunka dhan ba diiwaan geliyay anaga kaliya ma aha qasaara adduunku uu gaaray ganacsiga uu suu saameeyay adduunka meel una ka saameeyay ma laha cudurkan taako uu gaaray una dhaqaale iyo nafba una cudurkan halaagin ma laha waa lagu dhintay
ganacsiga waa ku burburay marka laba khasaaro ayuu cudurkan leeyahay naftii uu dilayo iyo ganacsigii uu baabiinayo oo muxuu ku baabiinayaa qofkii banaanka uma soo baxayo sidoo rabo uma ganacsanayo hadda fiiri lama aado wadamada dibadda alaab looma doonto alaab oo online u baahata timaada qofku jeeskiisa intuu tago uu alaabtu rabo uu soo doorto haddana inta ma imaan karo haddana ma noqon karo waxaasoo dhan waa khasaarahaasoo dhan ninka ugu sarreeya ganacsiga ugu sarreeya ilaa kan ugu hooseeya bay gaartay sektor ayna taabanayna malaha oo ganacsi ah marka taas adduuweynaha ay ka mid tahay laakiin annagu hadda baaxadda aanu boqolkiiba 80 hoos buu dhacay ganacsigu boqolkiiba 80 waa la wada khasaaray qof khasaar 20 kan waa inta yar ee magaalada isku furan tahay ee dhaqdhaqaaqa ayaa lagu socdaa ma ahan ganacsiga ballaarnaa wuu istaagay wuuna hakaday dad baa xataa kirada bixin la dukaamo badan oo kirada bixin baa jira alaabo badan oo dibadda laga keenay oo ilaa hadda dadkii ayna bixin baa jira laakiin ay isticmaaleen because waxa ku bixiyaan bayna haysanin dadkii ma imaanayaan goboladii isuma furna Nairobi gudaheeda un baa hadda ganacsi ka socda Nairobi banaankeeda lagama imaan karo ganacsigu soo laabanaya laakiin hadda khasaaradahaas waa mid gaari hoteeladii waa ibar lama seexdo oo loojimadii dadkii saxan jiray oo dibadda ka imaan jiray ama wadanka banaankiisa Nairobi gobolada ka imaan jiray ma joogan hoteeladii maqaadihii cuntadii sidii dadkii ma joogan oo sidii hore cuntada looma iibiyo dharka sidoo kale marka meel ganacsi ayna khasaarahan una saameyn ma jiro imisay la egyihiin khasaaraha aad diiwaan geliseen ilaa iyo hadda lacag badan waaye ma milyan xataa ma waxa waaye 3 bilood hadii la xisaab ama 4 bilood u dambeysay lacag dhowr bilyan oo Kenya shilling ala khasaaray billions ma milyan xataa marka taasna waa wax la arko markii jumla la isu geeyay sidoo dhan waaye sidoo dhan markaan isku geeyno lacag dhowr milyan oo dollar ay gaaraysaa khasaaradu khasaaraha aad khasarteen ma u gudbiseen dawladda Kenya si ay mar kale canshuur dhimis idinkugu sameeyso dawladda idinku dambato dawladdu intii ay sameyn kartay way sameysay maxaa yeelay dawladda dakhil wax soo galay hadda ma jiraan dadka wax soo gelinay ganacsiga shacabka haduu istaagay dawladdu wax kale ay qaban kartaa ma laha dawladda wax soo saarka waxay ka keentaa dadka shacabka ah ee ganacsada ayaa dawladda dakhil soo galiyay marka dawladdu already khasaara bay gaartay anagu marka khasaaro dawladuna khasaaraysa marka aniga dawladdu waan isku xiranay marka wax weyn oo inoo qaban karta dawladdu waa canshuur dhaafkaas waxaan ka ahayn dawladdu qaban kartaa ma jirto iyo in la fududeeyo xayiraadaha kale ee marka alaabta soo gelitaanka wadamada kale alaabta laga keenay ama dekedaha inay u fududeyso bay sameyn kartaa dawladdu waxyaalahaasna waan ka suganay inay sameeyaan canshuurta Soomaali community ama Soomaalida isla ay bixiyaan waa inaysa waxa waaye boqolkiiba 32 boqolkiiba 35 ilaa 40 ayaa wadanka dakhliga soo gala Nairobi ayaan bixinaa boqolkiiba 35 marka lacagtaas waa lacag aad u badan weeye dakhilka Nairobi soo gala magaalada Nairobi oo caasimadii ah dakhilkeeda waxaanu geynaa boqolkiiba 35 marka waxa naga sareeyaa 70 kaliya ama 65 inta kala dhan waa anaga ama boqolkiiba 40 baa marmar gaarsiina boqolkiiba 40 waa lacag aad u badan dawladdu way ogsoontahay hay'adaha dawladdu dhan taas way la dhaxsayeen wana ogyihiin markaan anagu hakano ganacsiga hakano dakhliga dawladdu soo gelin saas oo hakanaya marka waa mushkilad weyn oo dawladdu dareemayso oo marka la taabagal ah sax maadaama ay dawladdu canshuur dhimis sameysay idinka waxa jira dad aan kirida iska bixin karin sida aad adigu noo sheegtay oo masaakiin oo danyar ah oo kirida aan awoodin ama ha noqoto tii xaafadaha ama ha noqoto tii suuqa ma u sameyseen wax qiimo dhimis ma u sameyseen ma sakalaada shay bulshada moolka iska leh in ay u damqadaan dadka kale u sameeyaan qiimo dhimis waan kala hadalnay shirar baan galay shirarkii aan galayna waxaan la galnay dadka ganacsiga qof kasta waxaan u ogolaanay oo kala hadalnay inay dadka ay ayaga dadka meesha ka degan ama dadka clientigooda ah ee guryaha ka degan ama guryaha dukaamada uga jira inay la macaamiltamaan sidii ay u bixin lahaayeen ayaga dhexdooda marka dad badan baa hadda ka dhimay kirooyinka dhimay dad guryaha dad badan baa bulooyin baa loo dhaafay dad qaar waxa la boqolkiiba 50 bixiya haday kirada 50 ka ahayd 25 bixiya dhowrkan bilood dad badan baa loo dhaafay ninba si intii awood u kari ayuu sameeyay anagu aan ku qasbin dadka shacabka ama dadka mulkiilayaasha aan ku qasbin go'aanka ayaga gaari si fiican baan ula dhacnay because qofka intaas sanad wada joogteen inaad u ogolaatid oo muddo siisid inuu qofku iska bixiyo ama aad wax u dhaaftid dadka ka timid dadka mulkiilayaasha ay ka timid anaguna waan kula dhacnay waan ku taageernay waana sidii aan ugu wada nool yahay waxaan bariyay qof kasta wuxuu bariyay Ilaahay waxaan inuu naga qaado ganacsigiisa soo laabto ma sha Allah
ganacsi corona ka hor fayraskan corona intuusan dunida saameyn ama Afrika uusan soo gaarin Soomaalidu waxay u safri jireen Dubai meel kale ma ganacsigiisa ay Soomaalidu ka soo iibsadaan wuxuu ku yahay Dubai mise China kale mise wadamo kale ay iib keenaan wadamadu way badnaayeen China la aaday Dubai baa la aaday Turkiga baa la aaday India la aaday wadamada kale waxaa la aaday Far East Bangkok Philippines Indonesia Malaysia wadamadaas dhan waa la aadi jiray alaabta materialka xagga laga keeni jiray wixii oo dhan ma jiraan wixii aan online baa lagu keenay hadda wixii containerada online lagu keeno wixii online lagu keeni karo baa lagu keenaa maahana dadkii safri jiray dadka qaarkoodna xagga ku hakadeen oo China kama soo bixi karaan dadka qaarkoodna intay joogaan China ma aadi karaan ama Dubai wadamadaas dhan waa lagu wada hakadeen dad ba xagga jooga dad intay joogaan ma aadi karaan marka ilaa duwayno ganacsigu uu furmo xayiraadna saan buu jiraysaa marka taasi waxay keentay saameyn aad iyo aad u ballaaran maadaama dadku ay ganacsigooda uu ku xirnaamo wadamada kale oo wadanka gudihiisa wax soo saar badan lagu sameyn jirin ganacsiga isliisaas ku hokaday hadda wadanka meelaha kale ama ganacsiyaasha kale waxay ku warshamo local ah jira warshado oo local oo alaab keena oo ay ka qaataan laakiin dadkan Soomaaliyeed ama ganacsiga isli boqolkiiba 95 wuxuu ku dhisnaa alaabta dibadda ka imaanaysa dadka alaabta soo gelinaya ay dadka Soomaaliyeed waxa u badnaan boqolkiiba 75 wadanka Kenya dadka alaabta keena oo wax soo gelaya dadka Soomaaliyeed ganacsiga isla weey marka arintaas saameyn weyn bay ku kaleetay wadanka warshadaha eedaha oo wakaalada dawladda dhan way dareemayaan way dhaheen dadka wala kulma waxay dhahay alaabihii aaway maxaa dhacay ganacsiga muxuu u joogsaday wala soo waca dawladdu ku xirantay dadka waana arkaan marka ganacsiga isla wuxuu ku xiran yahay dibadda boqolkiiba 90 boqolkiiba 85 dibadda ku xiran yahay hadii dibadda istaagto oo la ka xiro wadamada dibadda la kala xiro ganacsiga isla saas ku xiran yahay marka waxaan furaynaa waxaan suugnaa insha Allah adduunka tama taariikh lix weyn la bilaabo hadda wadamo badan way furan oo hadda sida Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Yurubta dhaqaaluhu way furfurayaan xayiraad way qaadayaan marka anaga waxaan ka rajaynaynaa Kenya iyadoo sidoo kale in xayiraad qaado oo dadka loo ogolaado in alaabahooda dibadda ka kaydsadaan oo ganacsigu sidii ku bilaabo insha Allah kahor fayraskan corona imisa container ay soo dejin jirtay maalintii dhowr boqol container oo soo dejin jiray isliig gudaheeda waxaa la keeni jiray 150 200 container maalin kasta marka dekada waxaa laga soo saaray xataa 200 wax ka badan intay soo socdaan inta meesha lagu dejinayo maalinkiiba 100 container isli every day way soo gali jireen marka tii ma laha hadda halka container misal aan soo jiray waxaa la canshuur jiray 2 milyan iyo bar 2 milyan iyo bar $2 2 milyan iyo bar Kenya shilling u dhiganta 20,000 iyo $5 $25,000 halkii container marka lacagtaas dawladdu waa baaxadda leedahay dad ku dhufatid waad garan kartaa dakhilka ay dadka shacabka isli ay soo galin jireen dawladda wixii dhan way istaageen maadaama tiin marka canshuur bixiyaasha ugu badan dalka ay Soomaalidu tahay soo galitaanka ixtiraam iyo service-kii loo baahnaa sidii la rabay ma uga heshaan hadda waa uga helnaa أول هو like 10 أما 15 years ago لما هي الجرين لكن هذا the last 10 years أما last 7 years isbedel badan baa xaafadda lagu sameeyay xagga dhinaca horumarka ama jiddiska ama xagga nadaafadda taasna waxay ka mid tahay service-kii dawladda ay ku lahayd oo shacabka Soomaaliyeed ku lahaayeen ama shacabka Raisli ay ku lahaayeen ay ka mid tahay inkastoo anaguna advocacy badan oo nagu gelin wacyigelin badan iyo dhaqdhaqaaq badan aan ku xirnay oo shacabkii iyo dawladda isku xirnay oo nagu sheegnay dadku waxay dawladda ka leeyihiin oo anagu ugu tagno anaga dawladda u doodna waxa aan shacabku xaafadda Isli ay dawladda ku leeyihiin anaga u tagno u soo weydiina xildhibaanada la hadalna oo laga soo doorto xaafadda dawladda dhinaceeda wasaaradaha kale ayaan ku xirnay oo aan weydiisana waana la noo sameeyay hadda aragtay Isli jidad badan baa la dhisay oo zaid oo kolkii hore aad burbursana oo la mari karin oo roob haduu doo xaafadda aan la isu mari karin laakiin maanta haduu roob ugu weyn haduu xaafadda ka doo within 1 hour xaafadda ku qalalantahay oo wixii biyo mareenkii iyo jidadkii haleysana wixii dhan waa la hagaajiyay marka taas waxa noo muuqata inaanu xaqi dawladda aan ku lahayn inaanu helino maalin ka dambe si fiican aan u helino waxa noo balansana balamo badan way noo jiraan insha Allah oo aad ka shaqeynayno dawladda xageeda waa xagga qashin qabka ay kamid yihiin qashin qaadinta nadiifada ay kamid yihiin mar dhow waxaan sugaynaa inaan dawladdu hoos la saxaxano memorandum ama heshiis sidii magaalada loo nadiifin lahaa arrintan waa wadna gabagabadii baan soo gaarnay maadaama aan barnaamijka gabagabadiisa joogno ma rajaynaysaan dawladda Kenya inay xayiraadan qaado oo isu socodkiisa ku soo laabto maxaad leedahay ganacsatada Isli oo fariin u diraysaa horta awalan kulligana waxaanu isku faraynaa in la baryo oo Ilaahay weydiisano inuu wax naga qaado
ilaahay mooyaane kaalmo kale oo waxa naga qaadi kartaa ma jirto shacabku waa dad maadaama uu badanayo dad muslimiin oo dadka Soomaaliyeed muslimiinooda yihiin xaafada dadka ugu badanayo dad muslimiin yihiin inaanu ilaahay barin inuu waxan ilaahay naga qaado dawladana waan ka rajaynaynaa maxay yeelay adduunka waa la furfuray waxaan ka rajaynaynaa dawladda adduunka isu furfuray inay ka yeelanayso furfurto oo dadka adduunyadu talaabada uu qaaday inay iyaduna qaado waxay yeelay alxamdulillah hadda saameyn wadamada uu aad u aafiyay oo kala mid yihiin ilaahay waa naga badbaadiyay inkastoo cudurku jiro oo lagu sheegayo oo xataa dad xaafada dhexdeeda oo dad aan saa u badnayn laga helay oo la sheegayo laakiin alxamdulillah sidii saameyntii meelaha adduunyada kale uu geystay ilaahay noo ma keenin tan ilaahay waan ugu shukrinayna marka shacabka muslimiintu waa inay ilaahay baryaan dawladana waxaan ka sugnaa inay noo furto ganacsiga oo sidii hore lagu soo laabto oo markaana dhaqdhaqaaq uu si baaxad leh u bilaabmo laakiin midda muhiimku waa baryada ilaahay waa tahay daawadayaal barnaamijkii kulanka aad ka daawanaysiin shaashada telefishinka Kalsan oo marti inoogu ahaa isuduwaha guud ee guddiga ganacsatada Islii intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa tan intaan barnaamijkan mid lamid dib ugu kulmi doono waa bahda Kalsan TV oo idin leh sida ay nabadgelyo